gudoomiyaha gobolka Salel Mudane Farxaan Xasan Cabdi ayaa ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Salel. gudoomiyaha gobolka Salel oo ay hareera fadhiyaan duqa degmada Saylac ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Mudane Xuseen Idla Barkhadle iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Salel gaashaanle dhexe Maxamed Cali Cabdi iyo waliba sidoo kale xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland leeska guddiga uu magacaabay gurmadka abaaraha in ay ka qayb qaataan maalmihiina soo dhaafay abaarta ba'an ee ka jirta gobolada Salel iyo Awdal safar dheer oo aan soo maray meelo badan oo ay u wehelinayeen xildhibaan Axmed iyo maayarkuba iyo taliyaha qaybeedka waxaanu soo ogaanay in duruuf badan ay taalo wad u jeedaan ma filayaa waxyaabaha meesha ka muuqda يعني إلهي با وحويان دكانه ووحي إلهي لوجو ما هنقول مرة هوري لكن هذا ضد كا وحكم وضدب آدي درامي كرو وقف كستي وضمير لي وقدم كرو جوابها إمك عيدتكم ماليا وأيقدرين وحكم إذا حسين شيخ أواره شيري جارسا كروره لانتا مروحدا عيلقال inta u dhaxayso dhanba waxa ka taagan yani abaar yani waxa dib aan la qiyaasi karin dadku waxaad moodaa inay iyaga iyo xoolihii ay wateen ay kala lum waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqay oo wax la xusan mudan inankii ganacsatada ahaa ee ka soo jeeday ganacsatada ka ganacsata goboladan طريقة مرة جد كدير مرة وواحد ويان مالا أنو كدريمين دب بدن وأنو ماله نقول بتبنا هيد كارسية بيو وجناعسة ورشيد كل واحد وتيم بانفليا نكاسي واحد بدن أيو تري إلهي هرتينا وجيستي سجنات بانو مهنا قيا إلهي هرتي وحجيسني سا إن أيسلا نكاس وكله أيونا وحي أي هليان nin walba uu tabarruco haday tahay ganacsato haday tahay maxaa diaspora haday tahay yani waxa weeyaan cid kaste oo bini'aadanimo badanaysa waad u jeedaan waxyaabaha gobolka socda waxyaabaha dhibta taagan yani waxaan bariyahan soo marin waxaan isla garanay aniga iyo maayarkii iyo maamulkii meesha taliyaha qaybeedkii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka oo u horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin in aanu sameeyno guddidii abaaraha ee gobolka Salel waxaan u magacaabay guddidii abaaraha ee gobolka Salel 7 xubnood oo kala ah Maxamed Muuse Buucil Cabdi Kariim aw Aadan Kibaar Aadan Cabdillaahi Boorle Caateye Cismaan Muumin موسى طاهر أحمد محمد عوار الطاهر هون كيبل تي في مقالة السيلع.